السلام عليكم صاحبنا nagala socda mar walba bogeenan bukaan deeq clinic ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo aan halkan kaga soo gudbino mar waliba waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Dr. Shariif Xidig mowduucan waxaan uga hadli doonaa nooc kamid ah xanuunada ku dhaca naasaha laguna magacaabo mastitis naasaha waxa ku dhaca xanuuno kala duwan sida buro nooca biyaha ah ama burada tanaadkaha ah ee faafitaanka keenta isla markaana kansarku oo ka dhasho sidoo kale waxa ku dhaca caabuqa noocyadiisa kala duwan sida jirka qaybihiisa kale iyo xanuuno kale oo lala xiriiriyo naasuhu waxa ay ka samaysan yihiin qanjiro fara badan oo isku tagay kuwaas oo soo gaara ilaa iyo meesha madow ee lagu magacaabo alveolarka ee hore u soo taagan ee naaska afkiisa ku dhow qanjiradaasi waxa ay soo saaraan gabadhu markay irmaan tahay caanaha ay qanjiradu soo sameeyaan kuwaas oo ku soo gudbiya tubooyin isku tagtagay ugu dambeyn ka soo saara nibalka oo ah meesha ay caanuhu ka soo baxaan inta kadib naaska waxa la soo dirsaa caabuq lagu magacaabo mastitis oo ah infection guud kaas oo loo aaneeyo marka ay ilmuhu noogayaan naaska in infection ama caabuq ama bacteria noocyadeeda ay ka gudbaan duleelka naaska isla markaana gudaha ay bacteria gasho halkaasna uu caabuq ka dhasho caabuqa ama infectionka naaska badana waxa uu ku badan yahay gabadha nuujinaysa xilliga nuugmada ayaana badana la arkaa sidoo kale infectionka ama caabuqa naasku wuxuu ku dhici karaa gabadha dhalmadu ay ka raagtay dhowr sano aan dhalin iyo sidoo kale hooyada dhiigga caadada joojisay ama dhalmada goysay calaamadaha lagu arko caabuqa naasku uu keeno waxa kamid ah xanuun fara badan oo naaska gabadhu ka dareento naaska oo qayb gaduudato nabar ka soo baxa oo malax yeesha gabadha oo nuujin weysa ilmaha iyo sidoo kale qandho guud iyo sidoo kale inay gabadha la soo dirsaan matag iyo lalabo oo xanuun badan ay sida ku dareento waxa muhiim ah marka gabadha nuujinaysa in aysan joojin nuugmada oo ay sii wado hadii ay rabtana waxay isticmaali kartaa breast pump oo ah inay caanaha ka listo isla markaana ay ilmaha sidaas ku siiso oo aysan naasuhu gurin waxa muhiim ah gabadhu hadii isku aragto calaamadaha noocyo kamid ah ee naaska inay la xiriirto dhakhtarka sida in xanuun aan sabab lahayn hadii ay naaska ay ka dareento qayb kamid ah naasaha inay gaduutaan barar iyo kuleel fara badan iyo xumad ay la shaqeynsan weyso in hadii ay dareento waxa muhiim ah inay dhakhtarka la xiriirto inta kadib daweyntiisu way kala duwan tahay hadii infectionka naasaha ku dhaca oo ciladiisu aysan weynin ama xaaladiisu aysan darsan gabadhu waxay qaadan kartaa dawooyinka xanuun baabiyaha ah nadaafadana way ku dadaali kartaa hadii nabar ama infection gaaban ama aan sida u balaarnayna oo jiro waxay sidoo kale qaadan kartaa dawooyinka qalajiyaha ama antibiotica si meesha looga saaro bacteriyada sidoo kale waxa muhiim ah in nadaafada ku dadaasho oo ka hor inta aysan ilmaha siinin naaska ay dhaqdo kadib markii oo nuugo kadibna ay biyo diiran oo germs dile leh ay macnaha isaga nadiifiso sidoo kale hadii caabuqa ku dhacay naaska oo aad u darsaday infection badan iyo nabro iyo malaxna oo leeyahay waxa muhiim ah in qalliin fudud lagu sameeyo si meesha looga saaro laguna dadaalo dib u soo kabashada naaska inta kadib markii laga daweeyo caabuqa iyo calaamadaha ka muuqda naaska isla markaana uu soo ronaado waxa muhiim ah in laga hubiyo xanuunada kale ee faafi kara ee ku dhici kara naaska gabadha iyadoo la adeegsan karo sheybaarka isla markaana lagu ogaan karo ciladaha haya dhiig laga qaado waxa kale oo la adeegsan kara ultrasound-iga iyo sidoo kale waxa la adeegsan kara raajada nooca loogu talagalay naasaha ee lagu magacaabo mammography waa mahadsantiin